madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa maanta waxay soo gaareen Muqdisho. madaxweyne Geelle ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah Sabtidii maanta uga bilowday dalka, waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa qayb ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha dalka Djibouti. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdigiisa oo si heersare loo soo dhaweeyay. wafdigiisa waxaa ka mid ahaa fanaaniin caan ah oo muddo dalka ka maqnaa oo ka mid ahaa Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti iyo xubno wasiir ah, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho. kadibna waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. halkaas ayaa la filayaa in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay wada hadallo uga bilowdaan, waxaana la filayaa in wada hadallo laba geesooda uu madaxtooyada uga bilowdo madaxweynaha dalka Djibouti iyo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliya iyo Djibouti waxay wadaagaan xiriir qoto dheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan, waxayna booqashada madaxweyne Geelle ee Muqdisho sii xoojinaysaa baaleeri iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, dhaqanka, siyaasadda iyo ganacsiga. Salaaman Xaaji Axmed Raagi, Dalsan TV, Muqdisho.